runtii waxaan rabnaa inaan halkan fursad uga faa'iideysano caawa casharta waxaan noo sameeyay waa halkan injineer Saabir Cabdishakuur iyo Maxamed Cabdi Cali Birchik iyo sidoo kale asxaabta reer Frankfurt waxaan rabnaa inaan gaarno waa maasantiin sidoo cashartan maamuuska iyo qiimaha leh oo ku shaqeysaan sharax madaxweyne Xasan Shiraac Cabdi oo runtii caawa halkan la jooga injineer waddanka waxa uu tibsado بسم الله الرحمن الرحيم. runtii waxaa caawa farxadiya inaan ka soo muuqdo madal aad u qurux badan oo aanu ku sharafnay ku soo dhaweynay madaxweynaha mustaqbalka Puntland musharax madaxweyne Xasan Shiraac runtii anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada aqoon-yahanada dhammaan shacabka reer Puntland ee ku sugan Frankfurt iyo nawaaxigeedaba waxaan madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan waxaan rajaynaynaa inaad noqoto kii hankayaga iyo himiladayada halkii ay dalka maxaan ku raadaya ay tiilay qofkii geyn lahaa ilaa maanta iyo maalmo ka horreeyo dhan baa kolay dadku kula dardaarmayeen de kolley maalmuhuna waa badan yihiin waxaad maxaan ku raadaya aad ku noqon doontaa dalkii oo aanu doonayno inaad adyaala kuu royahay mustaqbalka dhow iyo kan dambaba aad cilmigaaga aqoontaada waayo aragnimadaada aad uga faa'iidaysid waan ogahayo hadda marxalado aad u adag baa jira waxaan rajaynayaa inaad noqotid kii ka samata bixin lahaa kii ummaddan masiirkeeda ka turjumi lahaa in kugu filan oo waayo aragnimo waa ka qaadatay dhalinyarada halkan ku nool waxay u baahan yihiin culaysyada iyo caqabadaha haysta kolley waa experience ku kordhay waa marxalad la doonayo markii aad dalka ilaahay kuu sahlo xukunkiisa inaad waxa ugu horeeyo aad anjandaha ku darsatid ay noqoto jooga youth badan oo runtii in laga faa'iideysto mudan xag dhaqaale xag aqoon xag cilmi intaba in looga faa'iideysto mudan waxaan insha Allah rajaynayaa inaad uga faa'iideyn doontid inaad dhanka wanaagsan aad u jihayn doontid dhalinyaradan inta markan ka imaado madaxweynaha soo dhaweyntiisa waxaan rabaa ruuxantii inaan u mahad celiyo gudoomiyaha Seko Maxamed Cabdullaahi Farxalay oo runtii hawl culays aad u culays badan naga furtay muddadii uu musharaxa madaxweyne uu halkan joogay taasoo runtii dhammaan gobolladoo dhan aysan u babacdhigi lahayn asagu danteeda isagu uu culayskeeda naga dulqaaday as Frankfurt ahaan waxa aynu caawa aan ugu talagalnay madaxweynaha oo soo dhaweynta ah waana ognahay waxa ay qabteen iyo kaalinta ay noo buuxiyeen anigoo ku hadlaya sidaan sheegay afka reer Frankfurt waxaan rabaa inaan mar labaad thank you iraahdo Maxamed Cali oo arrintan isaguna igala soo shaqeeyay Maxamed kelmadiisa isaguna oran doona insha Allah waana mahadsantiin madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow Frankfurt إن شاء الله أنا وأود شغلنا وأود شيء سندونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد منه ومتقنا رجي ولا كلام مشغول شقاقي تا جراس رجي ورد مش بود الشغل لكن رجي غيب إلى شغله مدحنا حقولنا سودو waxaan u malaynayaa markuu horeysay oo intii Puntland madax loo diray inuu sharax imaanay Yurub waxaan u malaynayaa waa ninka ugu horeeyay inooyinka Raajam Ramadan horta musharax kale ku horeeyay inooyin marka waxaan tijaabinaynaa masiirkeega waanu magaranaysaa iyo waxaan eegaynaa niman ku soo bixi kara madaxtinimada marka hore waxaan arkay in xaflad lagu qabanayo Ingiriis in Sweden lagu qabtay in Mareykanka lagu qabtay meelaha loo marka hadda waxa weeye sanadkan anagu way tijaabinaynaa waxaan rajaynayaa mataqaanaa musharaxa aanu dirnay inuu ku soo baxo madaxtinimada dhammaan asxaabta go'ayaasha ay muddada kula soo shaqeynayeen inta joogtay waddanka oo mahad celinaa oo ugu horeeyay gudoomiyaha Cabdullaahi
waxay farxad gelinayaa karaameynta iyo sharafta iyo qadarinta dhalinyarada reer Jarmal ay intaan hadda joogay ay ii sameeyeen oo aan runtii aan aad iyo aad uga qaali ahay aad waan farxad gelinaysaa qolada reer Frankfurt oo injineerka iyo ninkan Maxamed adeerkiis ahay raggaas khiyaarta aan iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin anuu oday baan ahay waxaan iskaga imi arrimo caafimaad iyo waxaan iskaga imi laakiin markii dambe dawladda Maxamed barnaamijyadan oday Maxamed Cali la yiraahdo joogo odagaas khayr Allah siiyo la joogay intii shaqada iyo waxaas la waday runtii wax fara badan ila qabtay aad iyo aad aan u mahadcelinayaa loo shiriyo iyo in madaxweyne la yiraahdo iyo waxyaabaha waa jecel yahay weeye marka aad baan uga mahadcelinayaa ninkaasna khiyaartan caawa sharftay sameysan mahadcelinayaa dalkii insha Allah ilaahiinkiis wuxuu siyaasado isdhaafdhaafiya way ka jiraan laakiin waxaan ku kalsoonahay inaan khayr dhammaanayso doorasho caadi ah sidii la arki jiray in ay dhici doonto ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii uu markaas caraf geliyana uu noqonayo hadduu aniga noqdo qofka ilaahay caraf geliyay waxaan rajaynayaa waxa maskaxdayda ku jira oo aan isleeyahay Puntland ilaa maalintii la asaasay maalin walba meesha ay maraysay waad ogeydo waxyaabaha dhiman si fiican baad u garanaysaa aan isleeyahay baan ka qabanayaa oo aan isleeyahay waa ay qorshaysan yihiin idinkana waxaan idin leeyahay dibadaha waxa la lacag lagama yimaado marka intii cilmi kala yimaadaha bahalkii rag caruur bay kala yimaadaan waa kala cararaan markay caruurta ay xoogaa noqoto marka labadaas qof baa laga yaabaa waliba haddii caruurta meesha ku weynaato ay noqdaan dadkan deegaankan ay noqdaan laakiin aqoon baa lagala fiican meeshaan wax la barto dhalinyarada waa soo dhaweynaynaa injineerka iyo Maxamed iyana waa idin mahadcelinayaa aad iyo aad baan mahadsantihiin insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa waa runtiisa nima boona fartumaati inaan noqotaan in reer Jarmal aad tirahdaan odagii waagi waa ku tufnay oo ninka ugu horeeyay waa ku tufnay odagii hawshii waa u hirgashay halkaas ilaah baa awoodaya laakiin ummadda afkeedu ku jira magciisu wax wanaaga baan u soconaay maslaxadda guud oo Puntland iyo hagaajinteeda baan u soconaay wax daan oo khaas ah oo aniga xasuusida aan ka leeyahay dawladda ma jiraan oo aan kale ma jiraan marka aad iyo aad u mahadsantihiin مشرح دولة بوتلاند waxaan ilaahay uga baryayaa hadii uu isagana khayr kugu jiro inuu ilaahay u sahlo hadii anaga oo ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed gebi ahaan ah oo khayr kugu jirana ilaahay ha u sahlo hadduu khayr kugu jirana ilaahay ka qabto wixii khayr ku ummadda ugu jiro isagana ugu jiro baan ilaahay u rajaynayaa insha Allah Xasan shira waxa weeyaan waa waaya arag dadku ibnu aadanku waa saddex waxa la yiraahdaa waa mid ku garaadle madax ku garaadle iyo maan ku garaadle saddexdaba waan ku tuhmayaayo waxa weeyaan mid ku garaadle intiina hadda halkan fadhida Jarmalka caawa fadhida Frankfurt ilaahay isugu keenay waa qofka socda badda ka talaaba waaga qofka badda ka talaaba waxa jira qurba joogo la warsan jiray waa mid ku garaadle oo diiwaano dhul badan maray waa maan ku garaadle oo waa qof waxa weeye cilmi leh oo aqoon ku tuhmayno raad waa weynaba wax daba dhaqaaqaya marka waana madax ku garaadle oo hadda waa mid mar hadduu ciro yeesho wax badan buu soo joogay marka Puntland wax badan oo soo joogay intaaba waan ku tuhmayaa waxaan leeyahay ilaahay ha u sahlo soo dhawow caafimaadkaadu timid iyo wixii aad timid iyo muraadkaagana Allah ku sahlo dhammaan khiyaarta injineer Saabir iyo Maxamed Cabdi Cali Birjigo horeeyaan martiqaadka noo fidiyay anigu ku soo dhaxdhacayo shaqaan lahayo halkan dhow laga soo afduubay rag Frankfurt iyo aagan laga tirsada baan nahay laakiin in badan baa naga maqan caawa oo shaqo intooda badan ku maqan kaliisna way nagu ahayd waana la soconay shaqantaadu in shaqan yar ma tihid inaad dalka nala joogto dhammaan khiyaarta gibiga ugu mahadcelinayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh